magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn waxaa maanta ka dhacay soobax balaaran oo lagu taageerayay dowladda federaalka Soomaaliya go'aankii ay ka gaadhay isla markaana xidhiidhka ugu jiray dalka Guinea geesta kalena waxaa lagu taageerayay shirkii balaaran ay ismada iyo waxgaradku isku yimaadeen deegaanka Harwanaag oo ka tirsan deegaanada gobolka Sool. aad baad u mahadsantihiin dadweynaheena soo bannaan baxay taageerada dowladda federaalka iyo baaqi isimada dhulbaante ay soo saareen ee ay ka soo saareen magaalada Harwanaag waxaanu aad u taageersanahay baaqa isimada baaqi ay soo saareen ayaanu aad iyo aad u taageersanahay waxaanu mar labaad taageeraynaa dowladda federaalka ee xiriirka u goysay dadka maxay haytooy Soomaalidiidka dadka qaabilaadda u sameeyay xiriirkii aad u jarteen waanu idinku taageersanahay waanu soo dhaweynaynaa waxaanu aad iyo aad u jecelahay oo doonaynaa inaad fahantaan annagu inaanu ka mid nahay dowladda Soomaaliya maamulkeeda ersanahay halkani waa Buuhoodle haddaan nahay reer Buuhoodle waxaanu taageersanahay dowladda federaalka Soomaaliyaana annagu Soomaalibaanu marnaba cid kale oo barnaamijka wadata ma taageersan dowladda federaalka abaanu ka tirsanahay iyadaan taageeraynaa ninkii meel kale dowladaha fog ee Afrikaanka ah iyo dowlad sokeeyaba ciddii faragelisa midnimada Soomaaliya waa muqadas. barnaamijka maanta lagu qabtay tiyaatarka Buuhoodle waxaanu ku taageeraynaa baaqi isimada saddexda gobol ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaanu ka soo horjeednaa baaq waxaanu taageero la leedahay oo aan wax la qabsanayna oo aan barkayaga ka nahay dowladda federaalka waxay diideen diidanahay waxay ka soo horjeedeen baanu ka soo horjeednaa waxay cambaaraysan waa la cambaaraynaa waxay Buuhoodle ku midaysan tahay oo ku asaysan tahay go'aanka federaalka dowladda Soomaaliyeed meesha dhaxay guri caadayso gabeedka waqooyiga iyo bariga waqooyiga midna aanu kuma raacsanin haddaan nahay moogta waqooyiga Soomaaliya haddaan nahay waxaan nahay anaga la xukumo xamar iyo federaalka iyo la xukumo codkaysiga lagu dhigay meesha dhaxay hadday guri caadayso haddaan nahay bulshada ku nool gobolka Cayn deegaanka Buuhoodle anagoo ku hadlayna afka deegaanadayada oo dhan Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaanu taageeraynaa go'aankii iyo baaqi ay soo saareen isimada deegaanka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee ka dhacay Harwanaag ee soo baxay bisha 4-teedii oo ku saabsanaa inaynu nahay Soomaaliya Soomaali weyn dalka Soomaaliya. Xuseen Xasan Cabde telefishinka caalamiga Kalson TV Buuhoodle.